joogna waqtigii aan sixi lahayn insha Allahna si degdeg ah ku saxeynaa insha Allah haduu la yiraahdo mudanayaal iyo marwooyin waxaa muhiimad gooni ah aan siinay dib u eegista dastuurka oo shaqo adag ah runtii wasaaradda dastuurka iyo guddiga dib u eegista dastuurka ee labada aqal baarlamaanka iyo guddiga dastuurka maxaan ku raahdaa independentiga ah ee xorta ah waxaan doonaynaa iyagoo midaysan oo wada tashin la sameeyaan iyagoo midaysan qaybaha kala duwan ee bulshada gobolka Banaadir iyo dawlad goboleedyada si aan u dhamaystirno dastuurka uuna u noqdo mid shacabka Soomaaliyeed ay qayb ka qaataan oo ay ku qanacsan yihiin haduu Ilaahay yiraahdo mudanayaal iyo marwooyin xiriirka aan la leenahay dalalka dariska ah iyo kuwa caalamka waa mid ku dhisan xushmo iyo ixtiraam iyo wada shaqayn si aan u xaqiijino aan u xoojino danaha aan wadaagno siyaasadda arrimaha dibaddu waa albaabka ay naga soo galayaan dalalka caalamka sidaas awgeed waxaan qaadanay siyaasad ku dhisan dhexdhexaadnimo iyo furfurnaan si aan u adkayno xiriirka aan la leenahay caalamka taasna waxay ka dhalanaysaa in loo macaamilo si siman waxay dawladda Soomaaliyeed على كلا شقي dhinaca kale waa maasantihiin xoogaa dhan farsamo iyo wax nooga halaabeen raali ahaada dhinaca kale dawladda Soomaaliya way ka go'an tahay ilaalinta iyo dhowrista xornimada iyo midnimada dalka Soomaaliya arrimaha masiiriga ah ee ku aadan ilaalada midnimada iyo wadajirka qaranka ee ay hadda ka shaqeynayaan dawladda qaybaheeda kala duwan waa kuwa loo soo gudbin doono golayaasha baarlamaanka si ay uga qaataan tallaabada ku habboon iyagoo u eegaya dastuurka dalka Soomaaliya waxay diyaar u tahay maalgashi Soomaaliya diyaar waxay u tahay maalgashi iyo ganacsi ay la wadaagto wadamada caalamka si kastaba ha ahaatee cid kasta oo doonaysa inay maalgashato Soomaaliya waa inay ogolaansho rasmi ah ay ka hesho hay'adaha dastuuriga ah ee dawladda federaalka ah waxaan uga digayaa fariist waxaan uga digayaa wadamada iyo shirkadaha shisheeye inaysan ku xadgudbi karin qarannimada iyo midnimada Soomaaliyeed waa dhab
waa dhab fariista waa dhab inaan xaalad adag ku jirno waa dhab inaan duruufo adag ku jirno waa dhab dhaqaalaheena inuu xun yahay uusan fiicnayn oo u dhutiyo waa dhab in wasaaraddeena maaliyaddu ay ka daba socoto ka daba ordayso canshuur aruurintii waa dhab dad qaar aynaysan fahamsanayn canshuurta macnaheeda canshuurta macnaheedu waxa weeye waa qofka dawladda raba canshuur waa inuu bixiyo canshuur la'aan macnaheedu waxa weeye waa dawlad la'aan haddaadan canshuur bixin macnaheedu dawlad fiican ma helaysid waa xaqiiq in hay-adaheena dawliga ah ay jilicsan yihiin oo tacbaan ay yihiin waa xaqiiq inaysan ammaano jirin oo dad naga mid ah ay musuq maasuq ku kacaan waa xaqiiq weeye waa xaqiiq in aamin darro ayna hayso oo qolooyinka shabaabka ah naloo soo diray inay ummadda soomaaliyeed ee lugaha qabtaan oo ay u diidaan ummadda soomaaliyeed inay la xisaabtamaan caalamka waa xaqiiq weeye intaas iyadoo ayna haysato soomaali waxaa la rabaa qofkii aan fahamsanayn soomaali waxay tahay inaan fahamsiiyo suga dadka soomaaliyeed duruuf kasta ay ku jiraan dhib walba ay ku jiraan waa dad adag dadka soomaaliyeed waa dad damiir leh dad raqiisa ma aha dad qiimo ku fadhiya ma aha dadka soomaaliyeed waa dad qiimeeya dalkooda qiimeeya oo waddaniyiina dadka soomaaliyeed waxa weeye waa dad u taagan inay difaacaan dalkooda oo aysan ogolaanayn marnaba aysan ogolaanayn marnaba aysan ogolaanayn hal taaka dhulkooda ka mid ah in si xun ku baxo sidaas darteed waxaan idiin sheegayaa xiriirka aan la leenahay dawladaha dariska ah waa mid ku salaysan ilaalinta nabadgelyada gobolka ganacsiga isu socodka dadka inaan iska kaashanno dhinacyo badan waxaan sameeyey safarro aan ku tegey dalalkaas dariska ah waxaan si dhow aan uga wada hadalnay inaan wada jir maxaan ku rahdaa uga hortagno dhibaatooyinka soo wajaha gobolka waxaan ku guulaysanay inaan isfaham ka gaarno sidii si wada jir ah loo ciribtiri lahaa wax kasta oo xasilooni darro u keeni kara gobolka mudanayaal iyo marwooyin waxaan ilaahay mahadiisa ah inaan sidoo kale aan ku guulaysanay soo celinta boqolaal dhalinyaro oo Soomaaliyeed oo ku jiray xabsiyo shisheeye sida India, Ethiopia, Seychelles iyo Libya qaar kalena aan wali ka shaqeynayno sidii aan dalkooda ugu soo aan celin lahayn iyagoo bad qaba mudanayaal iyo marwooyin Soomaaliya waxay dadaal xoog leh ay ugu jirtaa waxay dagaal xoog leh aan ugu jirnaa sidii aan dib ugu soo noolaan lahayn doorkii hogaamineed ee aan ku lahayn dunida waxaanan ku faraxsanahay inaan idinla wadaago in dadaal aad u badan kadib ay dawlad Soomaaliyeed ku guulaysatay in garsoore sare Cabdulqawi Axmed Yuusuf oo ah nin Soomaali ah loo doortay inuu noqdo gudoomiyaha maxkamadda caalamiga ah ee adduunka taas oo garsoore sare Cabdulqawi ka dhigaysa ninkii koowaad ee Afrikaan ah oo muddo 25 sano ah kadib gudoomiye ka noqdo maxkamaddaas caalamiga ah iskaba imaanay shaqo badan ayaan gelin sidoo kale waxaan hadda dadaal aan ugu jirnaa inaan markii ugu horeysay aan hogaamino urur goboleedka IGAD Executive Secretary oo aan ka mid ahayn dawladihii aasaasay waxaanan haysanaa fursad aad u wanaagsan in naloo doorto jagadaas hadduu Ilaahay yiraahdo
waxaan sidoo kale ka shaqaynaynaa sidii aan u horumarin lahayn xiriirka Soomaaliya iyo dalalka bariga iyo koonfurta Afrika si aan uga faa'iideysano ganacsiga iyo wax wada qabsiga wadamadaas sidaas awgeed waxaan dadaal ugu jirnaa sidii ay Soomaaliya qayb ay uga noqon lahayd wadamada ku bahoobay ururka COMESA oo ah suuqa ganacsiga oo mideeya wadamada bariga iyo koonfur Afrika waxaan sidoo kale aan dadaal xoogan aan ku bixinay sidii loo aas-aasi lahaa urur goboleed ganacsi oo cusub oo ay yeeshaan wadamada geeska Afrika kaasoo dhammaan wadamada qaybta ka ah u horseedi doona horumar dhinacyo badan taabanaya sida nabadgelyada dhaqaalaha bulshada iyo mid iyo kuwa badan intaas waxaa dheer وما سنتين waxaa intaas dheer inaan ka shaqeynayno hadda inaan ka mid noqonno East African Community ururka la yiraahdo inaan qayb ka noqonno hadduu Ilaahay yiraahdo oo aan ka shaqeynayno arjigan waa hadda xariisan yahay mudanayaal iyo marwooyin dowlad goboleedyada gobolka Banaadir iyo dowladda federaalka ah waxay mar kasta ka wada shaqeynayaan danta dalka iyo dadka si waafaqsan dastuurka ku meel gaarka ah ee dowladda federaalka ah si aan dalka ugu diyaarinno doorasho hal qof iyo hal cod ah oo qof kasta uu si toos ah u doorto deegaanada golayaasha deegaanada baarlamaanka iyo madaxweynaha qaranka haddii la isku raaco ayadoo la raacayo hanaanka xisbiyada siyaasadda waxaan bilihii ugu dambeeyey guddi khubaro ah iyo howlwadeenno Soomaali ah ay sameynayeen baaritaan qoto dheer oo ku saabsan nooca doorashada ay noqon doonto ay noo qabsoomi karta marka la fiiriyo xaaladaha amniga dhaqaale bulsho iyo siyaasadeed ee dalkeenu uu ku sugan yahay macnaheedu waxay tahay guddigaani waxay noo keenayaan options qaabka electionka uu noqon doono insha Allah iyo noocu noqon doono go'aan qaadashadeena kadib waxaa haddii alla idmo si rasmi ah oo faahfaahsan dadweynahan ula wadaagi doonaa macluumaadka ku saabsan doorashooyinka 2020 marka baarlamaanku ansixiyo hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan sidoo kale ka shaqayn doonaa sidii loo diiwaan gelin lahaa muwaadiniinta Soomaaliyeed miyi iyo magaalaba si ay u gutaan xuquuqdooda dastuuriga ah waxaanan u saarnay guddi cilmi baaris ku sameeya qaabka ugu wanaagsan ee aan ku diiwaan gelin karno shacabka Soomaaliyeed hadduu Ilaahay yiraahdo mudanayaal iyo marwooyin si arrimahaas loo xaqiijiyo waxaan si nasasho la'aan ah aan uga shaqeeyay inaan xiriirka ka dhaxeeya dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada uu gaaro heerkii ugu sarreeyay xiriirkaas oo ku dhisan wada tashi iyo isfaham ujeedadiisuna tahay sidii loo gaari lahaa himilada guud ee dalka iyo dadka si kastaba ha ahaatee waxaan si daahfuran u qeexaynaa in dhammaan arrimaha masiiriga ah ee ay ka shaqaynayso ama ay ka wada shaqaynayaan dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadu loogu soo gudbin doono golayaasha baarlamaanka si waafaqsan dastuurka dhinaca kale annagoo ka duulayna sidii aan dib uga hanan lahayn qarannimadeennii midnimadeennii iyo sharafteenii waxaan haddii alla idmo
dhowaan aan bilaabi doonnaa wadahadalladii dowladda federaalka la waday Somaliland kuwaasoo ujeeddadoodu tahay sidii aan dalkeenna iyo dadkeenna ugu horseedi lahayn mustaqbal wanaagsan oo gobonnimo leh dadka Soomaaliyeed waa dad waala ah oo aan kala maarmin wixii khilaaf ahna wixii khilaaf ahna waxaan ku dhammayn doonnaa miiska wadahadalka dushiisa insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo mudanayaal iyo marwooyin muddo gaaraysa 17 maalmood ayaa aniga iyo wafdi heer wasiiro iyo xildhibaano iyo mas'uuliyiin badan oo ay ka mid ahaayeen madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Puntland iyo Galmudug waxaan safar dhulka ah ku marnay gobollada bari nugaal mudug iyo galguduud safarkaas oo ahaa nabadeyn iyo dib u heshiisiin wuxuu ahaa mid wax badan kaga soo qabanay wax badanna aan ka soo barnay dhammaan deegaanada aan tagnay wuxuuna ahaa safar taariikhi ah mudanayaal marwooyin waxaan u mahadcelinaynaa dowladihii Soomaaliyeed dadweynihii Soomaaliyeed ee sharafta lahaa oo meel walba nagu soo dhaweeyay waxaan ku ammaanayaa sidii wanaagsanayd ay uga shaqeeyeen horumarkooda iyo xasilintooda deegaanadooda intii aan ku guda jirnay safarkaas waxaanan ku guulaysanay inaan dhammaystirno dib u heshiisiin maamulka Galmudug iyo ahlu sunno wa jamiica waxaan shaqo fiican ka gaarnay ama ka qabanay oo aan ku guulaysanay waxaan shaqo fiican waxaan shaqo fiican ka qabanay oo aan ku guulaysanay inaan dib u heshiisiin dhab ah u sameeyno magaalooyinka Galkacyo Cadaado Dhuusamareeb Xeeraale iyo Caabudwaaq waxaa hadda socda oo dhammaaday dib u heshiisiin laga waday magaalooyinka Gurceel iyo Balanballe khayr Allah siiyo wasiirka koowaad ee Galmudug Sheekh Shaakir hawsha wanaagsan oo halkaas ka geystay iyo sida wanaagsan oo dadkaas waalaha isugu soo dhaweeyay ilaa hadda wax badan ayaa ka fulay dib u heshiisiintii aan ka bilownay dadka deegaanadaas ku noolaa waxay dareemeen muhiimaddu ay leedahay in nabad lagu wada noolaado deegaanadaas aan soo marnay waxay ahaayeen meel ammaanaya ahayd oo nabada taasina waxay adduunka u ahayd cashar in Soomaaliya ay ka soo kabanayso haddana ay higsatay horumar iyo nabad dhammaan madaxdii aan kula kulannay Addis Ababa markii aan ka qayb galay shirkii madaxeedka ahaa ee soddomaad ee midowga Afrika waxay iigu hambalyeeyeen socdaalkii nabadeed iyo dib u heshiisiin taasina waxay adduunka tustay in aan isku tashanayno oo u soo jeesanay sidii aan dalkeenna u hagaajisan lahayn mudanayaal iyo marwooyin intii aan safarkaas ku jirnay waxaan dhagax dhigay dhismayaal kaabayaasha dhaqaalaha ah sida wadooyinka garoomada diyaaradaha dekedaha iyo abuurista fursado shaqo mashruucyadii aan dhagax dhignay waa kuwa aan isku tashanayno innagoo ah dawlad iyo shacab si aan gacanteenna ugu samayno horumarka aan doonayno
mudanayaal iyo marwooyin waxaan si gaar ah ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan aan uga codsanayaa inay ka qayb qaataan nabadgelyada dalka horumarinta dhaqaalaha dib u dhiska horumarka inay ka qayb qaataan nabadgelyada dalka horumarinta dhaqaalaha dib u dhiska adeegyada bulshada sida iskuulada iyo xarumaha caafimaadka dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha sida dhismaha wadooyinka dekadaha dib u heshiisiinta dalka iyo wixii la mid ah waa inaad difaac walaalayaal waa inaad difaaca iyo horumarinta dalkiinna ku bixisaan naftiinna hantidiinna iyo wakhtigiinna oo aynan sugin yabo shisheeye mudanayaal iyo marwooyin ugu dambayn waxaan ka hadlayay markii aan dhowr xaraf aan ku soo koobo waxaan ka hadlayay waxay ahayd markaan ka hadlayay dalka xaaladda uu ku jiro xaalad adag inay tahay dalku inuu dagaal ku jiro inaan hurdada ka kacno dalka inaan dib u xoreyno waa maqlayseen dowlad goboleedyada fariinta ay noo keeneen xaqiiqada jirta waxay tahay waa inaan ka shaqeyno dib u xoreynta Soomaaliya inaan ka shaqeyno aan ka xoreyno qolooyinka nabadiidka inaan dalka ka xoreyno oo aan nafteena u hurno dhiigeenna aan u daadinno dhaqaaleheenna aan ku bixinno walaalayaal taasaa kow ah macnaheedu waxay tahay waxay xaqiijinaysaa inaan nahay dad patriotic ah wadaniyiina markii aad dalkaaga xoreysato yaa waxaa imaanaya nabad iyo xasilooni ma imaanayso dalkoo dagaal ku jira waxaa imaanaya nabaddu markay timaado waxaa imaanaya in aan ismaamulno inaan maamul adag samaysanno markaan maamulka samaysanno waxaan isweydiinaynaa maxaan nabadda ku haynaynaa waa dalka waa xoreen waxaan nabadda ku haynaynaa inaan cashuuro aruurino in qof walba uu jeebkiisa ku tawarruco inaan sugno taakulayn shisheeye ma aha in dowladda loo daayo inay adduunka iyo caalamka u barya tagto ma aha canshuurta macnaheedu waxay tahay dowlad ma noolaan karto canshuur la'aan waa sida annagu aynan u noolaan karin hawo la'aan kalluunkan uusan u noolaan karin biyo la'aan macnaheedu waxay tahay markii aan canshuurta aruurino yaan waxaan bixinaynaa wax alla wixii adeeg aha loo baahnaa waxaan bixinaynaa mushaaharaad fiican waxaan bixinaynaa ciidan fiican mood wax ku qaban kara walaalayaal markaasaan awood waxaan u lahaanaynaa annagu inaan wax qabsanno marka la leeyahay abaaraha soo noqonaya oo beeraleydii ma haystaan abuur dowladda laga rabaa abuurka inay bixiso markaasi beeraleydu waxay awood u lahaanayaan inay wax beeraan waxa la leeyahay abaara yaala awood waxaan u lahaanaynaa inaan ceelal qodno awood waxaan u lahaanaynaa inaan nabadgelyadeena sugno awood waxaan u lahaanaynaa gabadheena xanuunsan ama gabadha dharaysa inay cisbitaal wanaagsan hesho awood waxaan u lahaanaynaa ilmaheen yarkaa nafaqa xumo inaysan ku dhiman
macnaheedu waxa weeye lacagtii aad bixisay adee dib kugu soo noqoto waa waxyaabaha marka aan beesha caalamka weydiisanayna dhaqaale waa lacag iyaga ka soo hartay weeye waxayna siinayaan markii ay siiyeen dadkoodii curyaanka ahaa dadkoodii fakriga ah markay siiyeen dadkoodii shaqo la'aanta markay siiyeen dadkoo xoolahoodii markay siiyeen wixii soo haray waxay leeyihiin war yaa baahan adduunkan wax siinaa war maxaa naga hortaagan annagu inaan wax caawinno waxaa naga hortaagan waxay tahay annagaan doonayn inaan bixinno wixii dowladdu ku shaqayn lahayd annagu waa la imaanaynaa wixii aad u baahnaydeen oo ah ammaanada inaan idin keenno oo qof alla qofkii musuq maasuq ah oo wax alla wixii jeebkiina ka soo baxay qaata inuu xabsi ku dhammaado waa ballan ilaahay laakiin waxaa loo baahan yahay in aan dhisno ciidan inaan dhisno soo qabta inaan mushaaharo fiican siino shaqaalaheennii si aysan waxba u hadin inaan mushaaharo fiican siino mushaaharaadku waxa weeye waa wax ku dhisan muwaadanka qofka inuu yahay muwaadin waxa caddeynaya inuu bixiyo canshuur markaasaa waxa imaanaya ganacsi marka ganacsigana wuxuu imaadaa markii dalka uu degan yahay oo dhaqaalihiisu kobco yaa waxaa imaanaya maxaan ku idhaahdaa investment imaanaya markaas weeye marka xitaa ganacsatada naftigooda oo hadda qaarkood diidan markaas weeye markaas aan keenayno bunuug aan keenayno oo deeman bixiya walaalayaalow dowladnimadeenu waxay ku xiran tahay hal arrin keliya inaan dib u xoreyno dalkan inaan waddaniyadii soo celinno patriotismkii inaan soo celinno oo qolooyinkan naloo soo diray oo maxaan ku rahaa lagu hanahaya tafaanahaya wixii nabad rabanna aan keenno aan soo dhaweyno wixii naloo soo diray inayna hor istaagaan oo dowladnimadeena diidaanna aan ka adkaanno wixii kalena aan siino cafis ballanteennu waxa weeye haddaad tihiin sharci dejiyaashii inaad hoggaamisaan dalka inaan xoreyno qof walba oo soomaali ahna uu istaago inuu dhiiggiisa iyo dhaqaalihiisa uu ku bixiyo markaasaan waxaan sheegan karnaa dowladdiina soo faragelisa ama shirkadahana soo farageliya inaan idhaahno war annagana ma soo faragelin kartaan maa la farageliyo dowladaha kale oo caalam ku nool wax kale ma aha waxaa laga faa'iidaysanayaa qaybsanaanshaheenna inaan qaybsannahay iyo ka faa'iidaysanayaan waxay ka faa'iidaysanayaan tabardarradeenna ka faa'iidaysanayaan laakiin wallaahi ma yaqaanaan soomaali ma yaqaanaan soomaali waa dad qab leh soomaali waa dad damiir leh weeye soomaali waa dad waddaniyad leh weeye waa la macaamilaynaa cid kastoo nala macaamisha waa ogolnaa xiriir wanaagsan inaan la yeelano cid walba laakiin jidka saxa soo mara oo hana quursanina oo hana qabjabinina soomaali dad qab leh weeye waa inay ogaadaan waa ogolnahay maalgashi waa ogolnahay wada shaqayn laakiin nidaamka caalamka soo raaca oo nagula shaqeeya wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bismillah suga officially waxaan caddeynayaa